halka ay ku qoran tahay line spacing ayaan tagayaa kadibna halkan calaamada plus tan saa ugu yar garaacayaa wad arkaysaa line-ka si uu kala fogaanayo isla markaa mid walba meesheedii ayay ku beegantay kadibna okay ayaa siinayaa kadibna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وضع وضيال كسو دوادا كنالكا إسلاميك تكنولوجي أصحابتا رونانتي نقو حران لسعوتي رونانتي بريهان دبا عشرة إنو سوق لنني waxaynu wadnay application-ka loo yaqaano tutorial-ka application-ka loo yaqaano Pixel Lab application-kan oo runtii powerful runtii wax badan qaban kara isla markaasna waxyaabo badan oo Photoshop-ka runtii lagu qabto lagu qaban karo marka cashirkan insha Allah taala waan bilaaban doonaa laakiin ka hor intaynaan cashirkana bilaaban waxaan jeclahay runtii inaan idin tuso waxyaabo aynu hore ugu soo qabanay si runtii ay u aragtaan awoodda uu leeyahay application-kani markii ugu horeysay ama maalintii ugu horeysay waxaan ku qabanay runtii loogadan loo yaqaano loogada YouTube-ka aynu ku sameynay sidoo kale maalintii ku xigtayna waxaynu ku sameynay loogada Adidas aynu ku sameynay runtii sidoo kale loogooyinkan ku sameynay waxa kamid ah si practical aan ugu sameynay loogadan runtii ku muuqata Islamic technology iska leedahay waxyaabaha runtii aan ku qabanay kale waxa kamid ah sticker-ka loo yaqaano ama invitation-ka loo yaqaano meherwacan sida awgeed qaybo kala duwan baynu ku dhisaan garanay sida kan oo kale ku muuqda kan oo kalena runtii wayna ku dhisaan garanay oo ku muuqda runtii waxyaabaha kale runtii aan ku dhisaan garanay waxa kamid ah runtii posterada runtii ganacsiga oo runtii ilaa loogada lagu darayo isla markaasna si easy ah aad runtii ganacsiga ugu haysan karto sidoo kale waxaan ku sameynay wax loo yaqaan 3D box aynu ku sameynay oo inagoo isticmaalana tool-ka loo yaqaan perspective view sidoo kale waxaan ku sameynay loogooyinka aynu ku sameynay runtii 3D-ga ee runtii professional-ka waxa kamid ah loogadan SR oo runtii dadku aad uga soo falceliyeen sidoo kale loogadan ayaa kamid ah waxa kale runtii ku sameynay certificate-ka ama shahaadooyinka qaabka loogu sameeyo aynu runtii baranay sidoo kale cashirkii ugu dambeeyayna waxaan kaga hadalnay qaabka loogu sameeyo business card-ka isla markaasna maanta insha Allah taala waxaanu bilaabanaa cashirkii ugu dambeeyay ee business card-ka qaabka loogu sameeyo insha Allah taala marka waxaan isku bilaaban doonaa cashirkeena isla markaasna waxaan geli doonaa halkan oo ah runtii Pixel Lab marka ugu horeysa sidii caadadayno ahayd waxaan sameynaa hadii la yiraahdo waxa iska delete gareynaa marka ugu horeysa tagaskan markaan iska delete gareynaa insha Allah kadibna halkaas baan taginaa saddexda dhibcood si aynu canvas size-kiisa aynu u bedelno halkan ay canvas size ay ku qoran tahay image size ayaan ku dhufanaynaa haddii aad runtii halkan soo furto wuxuu ku tusaya waxyaabo fara badan inaad runtii mid square oo kan imkaan isticmaalan oo kale aad isticmaasho inaad profile runtii mid square oo sidan oo kale isagana waa la mid kana YouTube runtii banner ama YouTube-ka runtii shaashadiisa oo kale inaad leegaysiiso kana inaad thumbnail YouTube ugu sameyso inaad cover runtii Facebook ugu sameyso inaad Google-ka runtii iyo waxyaabaha la midka sida website-yada inaad runtii ugu sameyso runtii cover waxyaabahaas oo dhan iyo ka ugu hooseeya ay ku qoran tahay runtii size-ka runtii Twitter-ka in ku sameyno intuba waxa runtii waa lagu qaban karaa aan ka noqono laakiin inagu mid customer iska sameysanayo gaari noo ah marka halkaas aan ku dhufanaa insha Allah taala kadibna halka waxaan ka dhiganaa 720 kadibna okay baan siinaynaa kadib waa arkaysaa qaabka ay u dhuubnaatay runtii marka inta kadib waxaan sameynaa hadii la yiraahdo halkaas baan ku dhufanaa insha Allah taala si aynu canvas-kan aynu iskaga bedelno cadaan uga dhigno kadibna halkan aynu ku dhufanaa insha Allah taala color-ka kalarkan kaga soo dhufanaa kadibna cadaan baynu ka dhiganaynaa insha Allah kadib markaynu cadaan ka dhiganay waad arkaysaa canvas-ki sidoo isku bedelay inuu halkan cadaan ay noqotay hareeruna sidoo kale ay madow ay noqdeen waad arkaysaa runtii kadib markaynu intaa ka tagno waxaynu insha Allah taala sameyn doonaa marka ugu horeysa halkan aynu ku dhufan doonaa insha Allah halka calaamada wadarta kadibna shay baynu ku soo dari doonaa shape-ka aynu ku soo darnay waxaynu ka dhigi doonaa tusaale ahaan black baynu ka dhigi doonaa midabkiisa kadib markaynu black aynu ka dhigno kadibna meelahaas oo kale aan dhigi doonaa saasna waynu u yara dhuubaynaa insha Allah kadib markaynu saas oo kale aynu xoogaa u yara dhuubno kadibna halkan baan tegi doonaa insha Allah taala halka calaamada shape-ska bartaka ku dhufan doonaa kadibna xagaas aynu u socon doonaa sidoo kale waa inuu shape-ku inoo highlight gareysnaada halkan ay perspective ay ku qoran tahay halkaas perspective ay ku qoran tahay ayaad soo furaysaa kadib markaad saa waxoogaa usoo furto kadibna waxaa ka dhigi doontaa insha Allah saas halkaasaad qaban doontaa halkan perspective hore inuu soo dhiganay qaab badan oo loo isticmaalo kadibna saas bad waxoogaa u yara afkiisa u yara dhuubaysaa yani saas oo kale baa ka dhigaysaa insha Allah saas qayb shape-kiisa markaa ka dhigto kadibna halkan ku dhufan doontaa insha Allah kadibna saas baynu waxoogaa u yaraynaynaa halkaas baynu u riixaynaa halkaa markaynu u riixno halkaa inoo yaala kaasi haddana waxaan soo qaadanaa adana shape kale sidoo kale isagana sidoo kale insha Allah taala ku sameeynayna
marka shape-kii labaad baynu soo qaadanaynaa isagana black baan ka dhigaynaa kadibna halkaas oo kale aan geynaynaa insha Allah halkaas markaan geyno kadibna saasaan u riixaynaa kadib waxaan sameynaa insha Allah halkan calaamada shapeska barta ka weynaynu joognaa sidoo kale wayna qaybteen inoo highlight garaysnaataa kadibna xaggan aynu u soconaynaa ilaa markaynu gaarno insha Allah halka perspective markaynu gaarno insha Allah taala sidii oo kale aynu sameynaynaa perspective-ka kanaynu saa usoo yaraynana insha Allah doorkan saas baynu kan yaraynaynaa kadibna qaabkaynu ka dhigno waad arkaysaa welibana aan xoogaa soo yar celiyo ama sidanba xoogaa u yar celiyo kadib markaynu qaabkaas oo kale runaantii u sameyno waxaan sameynaa haddii ilahay dhahdo haddana halka waxaan soo gelin doonaa insha Allah taala shape kale halka soo gelin doonaa sidoo kale kan yara khafiifinaynaa madow khafiifan ka dhigi doonaa kan haddii ilahay dhahdo halkana tagaysaa opacity-ga runaantii saa u yarayn kartaa saas oo kale opacity waniga saas oo kale u yaraynay kan waa madow khad ah runaantii aad u sii madow kana waa madow runaantii iska dhow oo runaantii cadaan soo yar xiga kadibna waxaan sameynaa insha Allah taala halkaas calaamada wadartan ku noqon doonaa insha Allah taala dana shapeskeena ku noqon doonaa mar kale waxaan soo dooran doonaa insha Allah taala shape baynu soo dooran doonaa waliba kan ayayna soo dooran doonaa insha Allah ka rectangle-ka ay waliba dhinaca u janjeera ayayna soo dooran doonaa kadibna waad arkaysaa runaantii kalarkiisu siduu yahay kalarkan baan rabnaa inaan iska bedelo runaantii anaa markii hore madoobeeyey laakiin waxaan ka dhigi doonaa insha Allah taala noocaas oo kale aan ka yara dhigi doonaa baajka aan aadka cadaanka uga dhex muuqan kadibna saas oo kale aan xoogaa ka dhigi doonaa intaa kadibna waxaan isku dayi doonaa insha Allah taala mar kale waxaan soo qaadan doonaa halkan calaamada shapeskan tegi doonaa haddana shape kalena soo qaadan doonaa oo seer kale walibana circle-ka markaynu soo qaadanana haddii ilaahay dhahdo kalarkiisana cadaan ha iska ahaado laakiin waxaan sameynaynaa stroke baynu hareeraha ka gelin doonaa insha Allah stroke baynu ku sameyn doonaa haddii ilaahay dhahdo stroke markaynu xoogaa saas oo kale aynu ugu sameyno welibana halkan aynu u socon doonaa waxaan tegi doonaa halka ay ku qoran tahay shadow waxoogaa hadh baynu ku yara daraynaa waad arkaysaa siduu noqday hadda xoogaa hadhna uu ku yara jiraa sidoo kale mar labaad aynu ku noqon doonaa sawir baynu kusoo daraynaa runaantii ani hadda sawir ma hayo laakiin waxaan kusoo dari doonaa wax sawir u eeg adiga sawir baad galeriga kaga soo dari doontaa marka casharka hore aynu soo daawanay halkaas aynu kasoo stickerskeenu soo galnay aan ku noqdo halkaas baynu soo galnay halkaas marka calaamada wadarta aan ku dhuftay halka stickers ay ku qoran tahay aan ku dhuftay kadibna xaggan aan u soo socday ilaa aan gaaro meesha ay ku qoran tahay maxay kurka yar iyo garbahaas oo ah loo yaqaano personal icon kadibna personal icon-ka waxaan ka dhigi doonaa kalarkiisa waxaan ka dhigi doonaa madow oo kale tusaale ahaan si uu si fiican noogaga muuqdo kadibna saasaynu xoogaa usoo yarweyneynayna ilaa aan meesha si fiican aynu u leegeysino insha Allah kadibna qaabka runaantii aan ka dhignay waad arkaysaa intaa kadibna waxaan sameynaa haddii ilaahay dhahdo waxaan kusoo daraynaa haddii ilaahay dhahdo halkan namekeenu ku qorinaa magaca halkana runaantii shaqadaynu ku qorinaa sidoo kale halkan nameka iyonu mar kale ku qori doonaa laakiin waxa ka horeeya shape baynu kusoo daraynaa marka ugu horeysa mar labaad shapeska aan ku noqono isla markaasna mar labaad aynu qaadana haddii ilaahay dhahdo rectangle aynu qaadana welibana aynu kalarka weliba aan ka dhigno rectangle-ka insha Allah kadibna rectangle-ka aynu xoogaa saa u yara dhuubno kadib markaan saa u yara dhuubno ka kale aan soo yara weyneynayaa okay si ay meesha wada leegaato kadibna saas oo kale aan ka dhigaynaa insha Allah saas oo kale markaynu kadibna ka dhigno waxaan sameynaynaa haddii ilaahay dhahdo halkan aynu tegaynaa perspective-ka aynu hore usoo aragnay perspective-kaynu soo furaynaa kadib markaynu soo furano geesaha yaree soo baxa baynu mid qabsanaynaa saas baynu u jiidaynaa welibana saasaan u celiyo okay hadda runaantii qaab fiican baynu usoo jarnay qaab fiicanna waynu u sameynay kadibna waxay noo haray runaantii kaliya inaynu halkan qoraaladii kusoo qorno waxay noo haray halkan waliba icons-ka inaynu soo gelino insha Allah marka ugu horeysa halkan calaamada wadartaynu ku noqon doonaa from gallery baynu ku dhufan doonaa gallery aan kaga soo darayaa kadibna saad arkayso icons-kii baan kusoo daray icons-kani runaantii barta Telegram-ka ayay noo yaalaan Islamic Technology cidda runaantii u baahan runaantii way ka download garaysan kartaa sidoo kale waxyaabo aynu soo YouTube-ka haddaad waxyaabo badan aan sameeyay ku aragtay dhammaantood waxaad ka heli kartaa Telegram-ka iyaga iyo material-ka aan ku sameeyay dhammaantoodba marka icons-kaas halkaas baan runaantii soo dhigay qaabkaas oo kale aan ka dhigay halkaasaan soo dhigay icons-kiina markaan halkaas soo dhigay runaantii kadibna qoraal baynu ku hor qori doonaa insha Allah halkana qoraal baan ku qori doonaa halkana qoraal sidoo kale halkan waxaan kusoo dari doonaa QR code-kii QR code-ka gallery-gan kaga soo darayaa وكا QR code-kii QR code-ka inta aan fahansanayn waxa weeyaan runaantii waa secret runaantii u gaar ah company-ga runaantii wax gacanta lagu sameeyo ama graphic design-ka uu sameeyo ma aha runaantii kadibna waxaan sameynayaa haddii ilaahay dhahdo halkan runaantii calaamada wadarta ayaa runaantii mar kale ku dhufanayaa si aan ugu soo daro tagas ama qoraal
kadib saad arkaysa qoraalka inta kale waan dadajiyey laakiin kan oo kale run ahaantii hal mar ayaan soo wada qoray qoraal baan kusoo wada sameeyey marka haddaba kalarkiisa waxaan ka dhigi doonaa marka ugu horeysa intaanan run ahaantii yarayn waxaan ka dhigi doonaa cadaan ayaan ka dhigi doonaa kadibna waan yarayn doonaa run ahaantii ilaa xad ayaan yarayn doonaa kadibna waan yarayn doonaa halkan aan tegi doonaa halkan size-ka si fiican hadda kuguma muuqdo waxaan yaraynaya wakaas kan ayaan yaraynaya run ahaantiis kadibna marka saas oo kale aan meesha u leegeysiiyo runaantii qaabkaasoo kale runaantii aan u yareeyo kadibna waad arkaysaa runaantii qaybtan iskuma dhowa halkan iskuma beegbeegna kadibna waxaan samaynayaa halkan aan tegayaa insha allahu tacaala anoo tagasku ii highlight garaysay waxaan tegayaa halkaas ay ku qoran tahay halka ay ku qoran tahay line spacing ayaan tegayaa kadibna halkan calaamadda blastan saa ugu yar garaacayaa waad arkaysaa lineka si uu kala fogaanayo isla markaa mid walba meesheedii ayay ku beegantay kadibna okay ayaa siinayaa kadibna qaybtii faceka ugu horeeyay qaybtii koowaad ayaan dhamaystirnay sida awgeed kadibna waxaan tegi doonaa qaybta labaad ee back ama dhanka kale run ahaantii ee back spaceka ama dhabarka qaybtan waa qaybta wejiga qaybta dhabarkana run ahaantii shirkadda ayaa iskale halkan run ahaantii shirkadda magaceegu kuma xusna waxa ku xusana run ahaantii qofka iyo run ahaantii shaqadiisa dabcan iyo shirkadda meelaha laga helaya way ku xusan tahay laakiin shirkadda loogadeedii waxayga ma yaalaan kadib qaybtan aynu safe garaysanaa galerigeenu ku safe garaysanaa qaybtan si gaar ah loo daabici doonaa iyada qaybta dhabarka ayaynu runaantii ama qaybta dambe wejiga qaybta dambe ayaynu runaantii aynu samayn doonaa insha allah si aynu u samaynana waxaynu marka ugu hore iska dhilid garayn doonaa qoraaladan oo dhan waynu iska tirtiri doonaa kadib waxaynu la hadhi doonaa waxaynu meesha soo gelin doonaa dhabarka loogada iyo runaantii shirkadda waxay qabatay ayaynu xagga dambe ku xayeysiin doonaa sida awgeed waxaan oo dhan waan iska tirtiri doonaa waxba ka tirtiri mayno halkan waan iska wada qarin doonaa insha allah marka laga tago labada shaybe ugu horeeya waan iska wada qarin doonaa dabcan hadda waynu wada qarinay waxay noo hadhay runaantii shapekaas baa inoo hadhay shapekaas iyo welibana personal iconka iyo wax lamid ah way noo hadheen personal iconka dabcan waanigaa ka wada qaaday kadibna kuwan ayaan looga ka furayaa marka ugu horeysa saan u yarayn doonaa insha allah kadibna kanna saasaan u yarayn doonaa insha allah intaa kadibna waxaan kusoo dari doonaa halkan loogadaan kusoo dari doonaa loogada kambaniga hoosta iyo shaqada uu qabto baan kusoo dari doonaa kadibna halkan galerigan tegayaa kadib saad arkaysa waxaan kusoo daray runaantii loogadii baan kusoo daray loogada saasoo kale markaan halka bartaka usoo dhigo kadibna halkaa shapeska bartaka markaan tago xaggan aan u socon doonaa insha allah ilaa aan gaaro meesha ay ku qoran tahay runaantii shadow kadibna waxoogaa hadh aaban yara gelinaynaa loogada saasoo kale baan ka dhigaynaa kadib markaynu noocaasoo kale aynu ka dhigno kadibna halkan hoosta waxaan kaga qori doonaa magaceeda iyo waxay shirkaddu ay qabato weliba labada magac baynu la soo noqonnay labadaas baynu insha allahu tacaala ku kala bedeli doonaa halkan magaca shirkadda ayaan ku bedeli doonaa tusaale ahaan magacan loogada maan imika u bixinayaa kadibna marka saasoo kale aan ugu qoro kadibna halkaasoo kale aan dhigayaa kadibna halkan waxaan ku qorayaa shirkaddu tusaalaha inay tahay graphic design shirkadda soo saarto graphic designer graphic designka ku shaqeysa kadib runaantii qaabkaasoo kale inu dhisaan garaynay backside-kii ama qaybtii xaggii dambe sidoo kale hadiiba runaantii ay shirkaddu leedahay halku dhegiyo ama maahmaahyo ama waxyaabo u gaara halka waa ku qori kartaa laakiin qoraal badan kulli tolo laguma qoro insha allah hadday productyo fara badan shirkaddu soo saartana qaar ka mid a halkan aad ku qori kartaa laakiin id cardku ama runaantii qaybtii labaad ee runaantii aan ku sameynaynay id cardka waynu ku samaynay runaantii sida awgeed labada qaybood ba runaantii waa diri doontaa si loo daabaco waxaan jeclahay runaantii inaad fahanteen maalintii shalay toolahaana mid kamid aynu soo samaynay maantana mid baynu samaynay waa casharkii labaad aynu kaga hadlaynay waxa loo yaqaana business cardka sida loo sameeyo adoo mobilekaaga isticmaalaya waana casharkii runaantii ugu dambeeyay aynu kaga hadalna runaantii business cardka marka graphic designkeena waynu sii wadi doonaa ee beedamkii casharo saa u badan inooma harsan wax yar baa inoo harsan badankoogii waynu soo dhammaystirnay waxaan jeclahay ardayda nagu xidhnayd inay si fiican u fahantay haddii arad nagu xidhnay runaantii waxaad naga heli kartaa bartaan ku leenahay telegramka waxaad ka heli kartaa material oo dhammaystiran sidoo kale barta facebookana macluumaad ayaad ka heli kartaa sidoo kale descriptionka ama commentiga ugu horeeya waxaan soo dhigaa casharadii oo dhan oo taxanaa playlist ku jira oo runaantii casharadii aynu soo dhiganay oo dhan ba halkaasaad ka heli doontaa waxaan jeclahay runaantii inaad fahanteen qaabka runaantii loo sameynayo business cardka iyo noocyadiisa kala duwan bay inaad fahanteen waayo designadu way kala duwan yihiin qaar baa runaantii saasoo kale u dhuudhuuban saasoo kale u dhaadheer kuwaasna idinkaan insha allahu tacaala idinka rajeynaya inaad samayn doontaan eebeydinkii tan intaynu ku kulmi doonaa casharkan oo kale lamid ah waa bahda islamic technology. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.